saddex ruux ayaa ku geeriyootay, afar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii galabta shil gaari uu ka dhacay duleedka koonfureed ee magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. waxaana isku dhacay gaari nooha ah iyo mooto bajaaj, waxaana markii dambe rugmaday gaariga noohada ah oo dhaliyay khasaare dhimasho iyo mid dhaawac. taliyaha saldhigga booliska Jowhar Maxamed Siyaad Cali Canjeex ciidad aad u fara badan ayaa gaaray goobta uu ka dhacay shilkani. waxaa meeshaan ka dhacay galabta shil laba filaan ah oo yacni maaragtay gaari nooha iyo waxaa isku dhacay mooto bajaaj. waxaan leenahay inta dhimataa loo naxariisto, inta dhaawacna allaha caafiyo. waa u nimiday dhaawac isbitaalka la geeyey, inta dhimatay isbitaalka ku dhimatay, inta dhaawac ahayna yacni allaha caafiyo. yani shil oo waxaa dhacay khatartiisa leh, saddex laba naag iyo nin aa dhintay, inta kalena allahu caafiyo. dhaawacyadana saddex camal yihiin noqdayha allaha caafiyo. inta kale dadka waxaan ugu digayaa darwaleynta ama maaragtay wajabada wato in aysan maaragtay ku kahdoobin wadada haddii la sameeyo inay dhib keento maaha. haddaana ciidamada booliiskana waxaan ka qaban doonaa howl ayaan ka qaban doonaa cid allaale cidda xawaaro ugu socota wadadan waxaan u baahanahay dadka darwaleynta degmada Jowhar iyo guud ahaan gobolka Shabeelle ku socdaba inay si deganaan ugu socdaan. waa kana dhibaa dhacay wadada marka haddii la sameeyo dhib noo keento maaha. gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Shabeelle Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh Xandow ayaa ka hadlay tirada shilkan ku geeriyootay iyo kuwa ku dhaawacmay. shil aan caadi ahayn aan si lama filaan u dhacay wuxuuna ka dhacay wadada isku xirtay Jowhar iyo Balcad. alxamdulillah hadda dadka dhimashada ilaa hadda waxaan warhaynaa inay ilaa 3 qof, dhaawacuna ilaa 4 ilaa 3 ay u dhaxeeya. waxaan leenahay inta dhimatay Allah u naxariisto, inta dhaawacana Allah u siiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. tirada dhimashada maamulku uu ka warqabay ilaa hadda waxaan anaga isbitaalka ku soo aragnay 2 haween iyo 1 rag, saddexdaas ayaa dhimashaa, dhaawacana waa 3 ilaa 4 qiyaastii. marka waxaan leeyahay dhaawac intaas waa dhimashadana waa intaas inaan ka warqabno. hadda shilka maxaa dhaliyay ay leeyihiin shilka waxaa dhaliyay mooto bajaaj iyo waxaa isku dhacay gaarigii noohada ay siday dadkaas dhintay. marka inkastoo hadda qaladka horta maalmaha waxaa jira wadada in la sameeyo baawarta waxaa moodaa inay xawaaro badan ku socoto. Iqraa Cabdullaahi Raage, Iqraladan, TV-ga caalamiga Soomaali Cable, caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle, magaalada Jowhar.